waa Zakariye Yaxye waxaan ku noolahay Istanbul waxaan leenahay shirkad la yiraahdo shirkadda Safiya Bella ayaana lagu casuumay shirkan waxaa ka soo qayb galay dhowr wadan oo Carab ah iyo wadanka marti sooray ee Turkiga ujeedada shirkan loo qabtay wuxuu ahaa in looga hadlo ganacsi iyo qof walba wixii uu markaa uu qabanayo inuu soo bandhigo iyo wixii hidiye dhaqan uu leeyahay marka anaga Soomaali ahaan aan uga soo qayb galnay waxaan soo bandhignay hidaheeni dhaqankeeni iyo wixii aan shaqo qabanayno shirkadeenaas oo ah shirkadda Safiya Bella waxyaabaha aan qabano waxa ka mid ah tusaale ahaan guryaha oo aan iibino guryaha kireeno dadka oo caafimaadkii waxaas aan ka caawino waxa ka mid ah saalon dumarka ah oo xamaam maghribi ah waxa ka mid ah dharkii hooyo oo aan dhawaan furi doono kareemkii halda guryaha wax walba holahaasoo dhan aan qabana darteed ayaanu lagu casuumay carab badana ka soo qayb gashay iyo dadkii wadanka Turkiga marka waxaan soo bandhignay holaheeni marka saasaan shirka ku joognaa walaal meeqa bariyo socday shirkan 4 maalmood oo socday shirkan maanta la soo gabagabeynaa insha Allah hadii ilaahay يعني أفر مال بندقان وجناعتي وحوس على أفر مال ها بندقة ما أنت بندقة وجونا ودعي أنت كلا شر عادي هاد يو وربحين لسسينا لكن بندقة ما أنت ودعي ما أنت ودن والبلد هاي وحا هي ست صوب بندق سي ودن ككلا وجا فايدستو وحي عن كشرني لغاله هي جناعتي عن كشرني سي لوجا فايدستو ما أنت لي ودن والبوس صوب بندق مركب بندقة هان ما أنت ودعي إلا إما ياخذ ولدود كسو خبكش waxa ka soo qayb galay wadamada Carabeed ugu badan yihiin 22 wadan Carab iyo Turkigan namarti sooray marka waxa la dhihi karaa ilaa 22 wadan ka soo qayb gashay bismillaah awalan magacaygu waa Amran Ali Aadan waana ku dhawahay waana ku faraxsanahay maanta inaan ka soo qayb galo shirka lagu bandhigayo ganacsatooyinka 28 wadan ka soo qayb gashay Carabta iyo wadankani martida aan ku nahay waana ku faraxsanahay walaalkay in aan ka soo qayb galo waxyaabaha soo bandhigayseen maxaa ka mid ah waxyaabaha hadda horteeda yaala u jeedin hidaha dhaqanka Soomaalida aan u leenahay iyo waxa kale oo hagaajisan qaybta lagu qurxiyo dumarka qurxin meel walba ee ay ka timaado dhanka aroosada dhanka xafladaha gaarka ah dhanka oo qofka xaflad u qaas uu leeyahay sida meelahan oo kale hadda markii loo imaanayo kale ajaanibta xataa oo u bandhignaa hidaha dhaqankeena cilaankeena waxa ka mid ah sida dharkeena caanka aan ku nahay oo hidaha dhaqanka ah sida gabdhaha kale wiilasha intay xiranayeen alaabaha oo guryaha lagu kan maxaa loo isticmaalaa kaas waa suunkii ay wiilasha ay dhaxda ku xiranayeen markay macawiista xirtaan kani waxa waay kan guriga lagu sharxado waxa ka mid ah kaashi bikeerigi shalnadii iyo dharigii iyo isdul saaran bahalkiisoo kale iyo kan masafta oo waxa cuntada lagu hagaajista ayaan habkan u habeynay san guryaha ugu sharxano oo hidaha dhaqankeena ugu lumin oo kale bahalkan waa sheyga calaamadeena ah oo lagu sharxado guryaha ama xafiisada iyo waxyaabaha la midka ah kani waxa waaye babiskeena oo calanka ku samaysan tan kalena waxaan kala soo hagaajinay bahalkan oo ah wadanka anagana soo dhaweeyay oo walaalaheena muslimiinta ah iyo calankeena wuxuu cadeyn u yahay wadanka kane Turkiga wuxuu cadeyn u yahay saan isku dhaxgalnay anaga iyo Turkida aadeen ugu maadsan yihiin kan waa wada taqaaniin waa barshintii oo lagu seexanayay sidoo kale koortiya tan guryaha lagu sharxada waa geeli iyo nirigtiisa ma sha Allah aad bay u wada qurxan yihiin kanina waa hidaha dhaqankii wiilasha xiranayay sidoo kale kan waa kaas
okay waan ku dhowahay waxaan maanta ka soo qayb galnay bandhig meeshaan lagu soo bandhigay ganacsatada isugu imaadeen Turkiga iyo Carabta aniga waxaan ka socdaa shirkadda Safiya Bella oo waxyaabo kala duwan sameeysa sidoo kale aniga waxaan hadda aan qaas ahaan aan qaabilsanahay ka socdaa qurxinta dumarka xagga qurxinta dumarka koofeerka waxaan sameeynaa masaajka waxaan sameeynaa xamaam maqribiga xinnihi qurxinta dumarka oon kala reebnayn oo dhammaystiran hidihii iyo dhaqankii haddaay sidaad arkayseen gabdhihii iyo maxay ahayd labisan waad aragtaan intaasaa maanta muhiimadda ahayd oon soo bandhignay hidihii dhaqanka Soomaalida koofeerkeeni ilaa iyo meeqa dawladooda ka soo qayb galay dawlado kala duwan ka soo qayb galay maanta bandhigan Syria Iraq Turki Soomaaliya Algeria intaasaa ka soo qayb gashay waxaan ka mid ahay dadka Soomaaliyeed ee hadda ku sugan wadankan Turkiga waxaan ka yimid wadankaas North America Mareykanka ka yimid marka waxaan maanta fursad u helay maalintii ugu dambeysay inaan ka qayb galo bandhigii wadankan dadka Carabta ah oo aanu ka mid nahay maalgashi ay ku sameeyeen marka waxaan ka mid ahaa jaaliyada Soomaalida oo waxyaabihii ay soo bandhigeen ganacsato badan oo Soomaali ah marka aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo ka Soomaali ahaan aan ka soo qayb galno bandhigan maalgashiga wadankan Turkiga ilaa iyo meeqa dawladooda ka soo qayb gashay walaal cadadka hadda inta aan ka warhayo in ka badan 25 dawladood baa ka soo qayb gashay oo ay Soomaalidu ay ka mid tahay ganacsatada Soomaalidu ka mid yihiin wax badan oo aad Soomaalida lafdhabar u ah haddii noqoto xoolaha haddii noqoto waxyaabaha sida dhaqanka bay Soomaalidu soo bandhigeen marka waxyaabahaas aanu qayb ka mid ah Soomaalidu soo bandhigeen waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa bandhigii lagu soo bandhigayay ganacsiga wadamada Carabta iyo ganacsiga dalkan Turkan oo ay ka qayb galeen ganacsato aad u fara badan oo Soomaali ah iminkan waxay la taagan mid ka mid ah ka soo qaybgalayaasha bandhigaas walaal magaca magacaygu waa Sahil Maxamed Sahil waxaa ka soo qayb gashay bandhigan lagu soo bandhigay ganacsiga waxa ka mid ka socotaa Bella Company Agents waxyaabaha soo dhigtay maxaa ka mid ah waxyaabo badan oo aan soo bandhignay qaababka hidaha dhaqanka waxbarashada fiisooyinka ganacsiga kaargooga barnaamijyada aad u fara badan aan ku qabanaa magaalada Turki yani magaalada Istanbul taasoo aan ugu faa'iideyn dhammaan ummadda Soomaaliyeed wadanka iyo daafaca caalamka meel walba ay ka joogaan qaab kaargo ahaan markii la dhaho hawsha ugu badan manoo sheegi kartaa inta maalmood uu socday bandhigan wallahi muddo 2 maalmood uu socday maanta ku 3 ku ah wadamada ka soo qayb galay bandhigan ganacsigooda ku soo bandhigay imise wadan ay ahaayeen wadamo aad u fara badan Suuriya Iraq iyo wadamo aad u fara badan waa tahay ma jiraan kambaniyo kale oo Soomaaliya ayagana oo bandhig ku soo bandhigay dabcan way jiraan kambaniyaal aad fara badan meeshan imaaday soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka iyo qaababkooda shaqooyinka kala duwan dabcan aad u mahadsantahay bismillaah ciiga waa Firdawso Maxamed Xasan oo ka socota shirkadda Safiya Bella xaggan waxaa ka soo qayb galnay ganacsiga u dhaxeeya Carabta iyo Turkiga annaga shirkad ahaan xaggan waxa uu maanay inaan ku soo bandhigno dharkana arkaysaan hidii dhaqanka unsiga like macmacaanka wax walba dumarka lagu qurxiyo soo waxa soo dhan ka helaysaan waxa kale halkaaneed ku haynaa like saloonkeena oo qurxinta dumarka anything oo naag u baahan tahay laga heli karo so shirkadeena waxaasay qabataa halkaana waxaa uga soo qayb galnay intaasna ku soo bandhigno hidii dhaqankeena iyo waxaa arkaysiin like unsiga waxyaalo badan macmacaanka wax walba waxaasoo dhan ka heli kartaa ilaa iyo meeqa dawladooda ka soo qayb gashay wallaahi dhowr dawladooda ka soo qayb gashay like ay Carabta u badan tahay Turki sidoo kale inta arkaayo in badan waaye aan la tiri karin aan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo iska waran تمام السلام عليكم مقع اسماعيل سدير هاي فهمت هاي سكورن الحمد لله كله صومالي انا سوريا اما صومالي ما جاله ولا كله اخوان مسلمين ما هي سنه حبيبي ونكسين بسم الله الرحمن الرحيم افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام
نشكر الجالية الصومالية على اشتراكها معنا في ملتقى الاستثمار العربي الأول في اسطنبول، ونشكر جهودهم المبذولة في إنجاح هذا المؤتمر ومشاركة الأخوة المستثمرين الصوماليين المتواجدين هنا في اسطنبول بفعاليات المؤتمر، وإلقائهم الكلمات الجميلة الرائعة عن تركيا وعن أهل تركيا وعن رئيس تركيا. وإن شاء الله نحن نكون معهم دائما على تواصل دائما. الملتقيات الأخرى سيكون لهم باع طويل معنا في تقديم الأفضل إن شاء الله لبناء الخدمة والتجارة المشتركة بيننا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. walaalayaal maaragtay aad iyo aad baan runtii maanta ugu faraxsannahay in aan ka soo qayb galnay multaqa al-istithmaar al-carabi oo macnaheedu uu yahay maxay ahayd kulanka carabta ee maalgashadayaasha ha noqoto inay maalgashtaan waddanka Turkiga dhexdiisa iyo ha noqoto inay maalgashtaan waddanka dibaddiisaba. runtii 12 dawladood ayaa ka soo qayb galay, 22 dawladood ayaa ka soo qayb galay oo si facaal ah ugu soo qayb galay. waxayna nagu sharfeen inaan ka soo qayb galno markii ugu horeysay oo ganacsatada Soomaaliyeed ay ka soo qayb galaan shir saan oo kale ah oo ay yeeshaan meel loogu soo hagaago oo la siiyo janaax dhan ay maaragtay ku soo bandhigaan waxyaabaha ay soo saaraan iyo waxyaabaha runtii ay ka ganacsadaan. runtii waxay u ahayd wax wanaagsan dadka Soomaalida ee degan ganacsatada waddankan iyagoo markaas soo maray jaaliyadooda Soomaaliyeed in ay u soo diyaariso ganacsatada inay ka soo qayb galaan. marka runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ganacsatada guud ahaan ka soo qayb gashay oo u kala baxaya dad ayagu wax soo saara oo mintage sameeya iyo dad wax meeshan ka iibsada oo u iibgeeya wadamada Afrika iyo Aasiya iyo Soomaaliya u iibgeeya. marka intaba waan u mahadcelinaynaa. waxaan kaloo si khaas ah u sii mahadcelinaynaa shirkadaha ka soo qayb galay mu'tamarka runtii ay ugu horeyso shirkadda Safiir oo si wanaagsan ugu soo qayb gashay. waxaa kaloo ku xigtay shirkadda la yiraahdo Safia Bella oo runtii ah shirkad wax soo saarta oo muntaja. waxaa kaloo ku soo qayb gashay shirkadda Amish Salon oo runtii ah meesha lagu qurxiyo dumarka si islaamiya oo waafaqsan shariicada islaamka, meeshii awal ay ka gali jireen meel rag joogaan, meel waxaa loo sameeyay gabdhaha wadaadada ah ay maaragtay maasha Allah ay ku asturan yihiin. waxaan kaloo u mahadcelinayaa shirkadda la yiraahdo Forenty Line Company oo ah shirkad runtii si wanaagsan aydan uga qayb qaadatay kana mid ahayd qabanqaabiyaasha shirkan. waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa shirkadda Brim Real Estate oo ah shirkad ka shaqeysa real estate-ka ama caqaaraadka oo runtii si facaal uga soo qayb gashay. waxaan kaloo u mahadcelinayaa shirkadda la yiraahdo Agasim Company oo runtii aydan aad kaadin libaax la ka qaadatay inay ka soo qayb gasho shirkan qiimaha badan. waxaa kaloo si khaas ah aan ugu mahadcelinayaa 4 shirkadood oo runtii dacmiya hadday tahay jaaliyadda Soomaaliyeed, hadday tahay dadka dhibaataysan ayaan si khaas ah u mahadcelinayaa shirkadahaas oo kale ah oo aan isleeyahay waa shirkadihii soo aasaasay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga oo muddo 1 sano iyo bar ah runtii dhiibayay lacagta ku baxaysay ama kirada xafiisyada ama maaragtay serviceka ku baxaya. shirkadahaas waxaa ugu horeeyo shirkadda Imash Company oo ah shirkad weyn oo ka shaqeysa logistic. waxaa kaloo shirkadda labaad Hammi Group waa shirkad ayaduna aad iyo aad ka shaqeysa ganacsiga guud. shirkadda Sahan Group oo runtii ah shirkad weyn oo ka shaqeysa real estate iyo ka shaqeysa inay dhoofiso raashinka iyo wixii lamada. aad iyo aad baan u mahadcelinayaa. shirkadda afraad waa Ak Turk oo ah shirkad ayadana ka shaqeysa export imports oo aad iyo aad ayadana aan u mahadcelinayno. 4 shirkadood runtii waa 4 shirkadood dhisay maasha Allah muddo sanadii bara maalgeliyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Turkiga. maanta waxaan leenahay ka qaybgalkiina iyo sharaf ay noo ahayd maasha Allah. marka waa dareemi kartaa qofka 1 sano iyo bar wax yani maalgelinayay yani ahmiyadda uu siinayo inay ummaddu ay yeelato jaaliyad, inay ummaddu ay yeelato maamul. marka runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.